سلام شرفت هذا ديار دولة قبلتك جبلان مدن كسلوو وعافر حدوي ما عاوة وتاريخ ذو تهي كود لوليو لبكن يا لباتن إلى نحصى إنه تاريخ آذ دير قيمة يقدرين مجتمع الصومالية له meel kastoo caawa joogo oo ku aadan xuskii 60 guuradii markii ay calanka Soomaaliyeed laga taagay ciidda Soomaaliya iyadoo ay ahayd 26 Juun 1960 oo dhowr cisho laga joogo inay ahayd markii ugu horeysay ciidda Soomaaliyeed calan Soomaali ay leedahay oo mara buluuga xidig cad ku taalo shangeesa astaanta iskale laga taagay ka bacdina caawa ay muhiimadu ahayd iyadoo goboladii koonfureed ay qaateen calanka iyo isku darkii labada gobol oo waqooyi oo ka horeysay dhowr maalmood iyo koonfur sida isugu yimaadeen iyadoo Talyaaniga iyo Ingiriisku uu kala gumaysanayay oo garanayo aan isleeyahay maanta dad badan ma jiraan oo dadkii xafladda maalinta iyagoo dad mas'uuliyiin ama odayaal joogay waa number aad u yar baan isleeyahay sababtoo bulshada waxaa ka badan intaas kadib ama da'dooda ama si dhalatay ama saaxada ku soo biirtay ama waxyaalo badan oo kala ka sii badan laakiin waxaan isleeyahay waa xilli macaawo oo kale oo garanayo qofkii xilliga calan saarka joogay farxadda qofka Soomaaliga uu dareemayay iyo meesha uu taagnaa iyo dareenkiisu waxa uu ahaa qofkaas maanta caawa in la weydiiyo mudan waa arrin taariikhi ah oo 60 sano aynu soo maray xorriyadda aynu qaadanay 1960 ee caawa oo kale aynu u dabaaldegayno 60 sano ka hor ma ayna ku imanin ciyaar ee waxay ku timid dhiig iyo halgan dheer oo la soo maray iyo taariikh dheer oo dadka Soomaaliyeed oo la garanayo nacaybka ay gumaysiga u qabeen iyo qadiyada ku jirtay sida ay ahayd taasaa waxay keentay in ay soo maraan halgan dheer oo dadka Soomaaliyeed ay u soo maraan inay xorriyadooda qaataan sanadka 60maadkii waxay ahayd sanadaha ay dawladaha Afrika ugu badnaayeen ee xorriyadda qaadanayeen waxaa la yiraahdaa waqtigii Afrika xoroobaysa bay ahayd iyadoo markaa mustacmaradihii jiray loo waxaynayay halganka dheer ee Soomaalidu ay soo martay mid taariikhi ah buu ahaa laga soo bilaabo Axmed Gurey taariikhdii daraawiishta Maxamed Cabdulla Xasan ururadii xornimo u dirirka sida SYL iyo ururadii kaleba waxay ahayd mid maanta qof waliba uu garanayo waxa aan ku naaloonay iyo caawa calanka aan saaraynay inuu yahay mid iska lahaa muhiimadaas dadka Soomaaliyeed markaa ay muhiim tahay in caawa oo kale ay gartaan oo ay aad ugu hiloobaan xiisihii Soomaalidu xilligaa isu qabtay iyo dareenkii dadku ay qabeen waqtigaas iyo jacaylka dawladnimada loo qabay sababtoo qofku marka uu soo mara marxalad ama uu dareemo ay jirto marxalad waxa ka maqan uu garanayo oo uu dareemayo inay wax ka maqan yihiin markaas qofkaas wuxuu aad u garanayaa waxa ka maqan iyo raadintiisa laakiin dadka dawladda ku dhaxdhashay aan arag dhibaatadii loo soo maray aan la soconin halgankii aan la soconin marxaladihii iyo wixii kala duwanaaya la soo qaatay waxay la tahay wax si fudud ku yimid oo si fududna lagu waxaynayo taasaa had iyo jeer waxay keentaa markaa dadku inay isku si u dareemi waayaan ama isku si ay u qaadan waayaan dareenka dawladnimada iyo wixii la soo maray waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ku booriyo oo ku dhiirigeliyo aan xusuusanno taariikhdii shalay aan soo maray aan xusuusanno odayaashii maanta way joogaane sida ay ahayd iyo dawladnimadii sida aan u soo maray iyo baahidii aan u qabnay gabdho badan baa ku waayey naftooda wiilal badan baa ku waayey odayaal badan baa ku waayey halgan dheer oo la garanaya ayaynu soo maray 60 sano waddanka Soomaaliya wuxuu soo maray dawlado kala duwan oo qaarba ay heer ahaayeen 9 sano ugu horeysay xukuumaddii rayidka ahayd
waxay ahayd xukuumad ku dhisan baarlamaan madaxweynada doorto ra-iisul wasaare oo sidaa u socotay muddo 9 sano 60kii laga soo bilaabo ilaa uu ka dhaco dilkii madaxweynihii ugu dambeeyey dowladda allaha naxariista cabdishiid cali sharmaarke oo la dilay Oktoobar 1969kii dhowr maalmood kadib duruufo jiray iyo asbaabo jiray daraadood ay suurto gashay markaa in markaas iyadoo ay waqtigaa jireen waqtigii revolution ama kacaanada towraduhu ay ka dhalanayeen inta badan wadamo badan oo Afrika ah inay timid markaa in dowladdii kacaanka ahayd ama militarigu uu la wareego xukunkii dalka Oktoobar 21deedii 1969kii dowladdaas oo ay socotay muddo ku dhow 20 iyo dhowr sano 21 sano ama 20 sano inay jirtay xukunkaas militariga oo kacaanka muddadaas kadib xukuumadda militariga waxaa ka dhacay kadib aakhirkeedii sanadihii ugu dambeeyey in dalka ay soo galeen waxyaalo badan oo siyaasada oo qabiil huwan oo la adeegsanayo oo markaa gacmo badan oo sheey ay ku leeyihiin taasoo sababtay burburkii dowladnimadii Soomaaliya iyo bilowgii dagaalkii sukeeye ee baahsanaa ee aan ka tegin geedkii ingegnaa qoyanaana qallajiyey wax kastana yaabiska ka dhigay ee wax walba cunay oo dagaalkaasi uu sababay wax Soomaalida u keenay burbur ilaa maanta aad dareemi karayso adduunkii xilligaa aan la soconay iyo marxaladii aan maraynay inta aan dib uga dhacnay iyo meesha aan ku hadhnay waxaan maray dagaal sokeeye oo ina burburiyey oo qabiil isugu diray dadkii oo aan isleeyahay ma ahayn dhaqanka Soomaalidu uu lahaa in xoolaha la kala dhaco ceelasha la isku qabsan jiray laakiin dagaal siyaasadaysan oo qabiil oo nooca u dhacay ma ahayn dhaqan ay Soomaalidu lahayd wuxuu ahaa mid aan isleeyahay faragelin badan iyo siyaalo badan oo markaas xawligan ku soconay markii asbaabo badan la fiiriyo waxay sababtay in burburkaasi uu dagaal qabiil oo Soomaaliya ay kala miiranto oo qof walba uu u cararo deegaan oo dagaal burbur rajo la'aan waddanka uu galay dagaalkaas sokeeye ka bacdi waxaa la isku dayay in dib u kabasho la sameeyo waxaa jiray isku dayo badan ama muxaawalaad badan oo dadka Soomaalida ah ee inta badan firfircoona iyo dad badan oo kale oo la jecelo ka hayay dhulka iyo waddanka Soomaalidu inay isku dayaan marar badan bal in la isu keeno oo dalkii Soomaaliyeed dib loo soo celiyo dowladnimo Soomaaliyeed la raadiyo waxaa ka mid ahaa dowladihii la soo dhisayay markaa oo ay ugu horeysay dowladdii TNG TFG iyo federal government oo maanta midda taagana dowladahaasi isku dayo badan oo waxaa jiray loo isku dayay in shirarkii soo dare Imbagati kii Carta intaasoo shir waxaa Jabuuti oo dambe mar kale ahayd waxaasoo dhan waxay ahayd isku dayo bal in la helo dowlad Soomaaliyeed oo buuxin karta maqaamkii iyo booskii ay ku lahayd caalamka in dib kabasho loo helo waxaa ilaahay mahadii noqotay dowladdan hadda ugu dambeysay ee xaaladda maanta taagan inay noqotay dowlad federaal ah oo markaas waddankii uu qaatay system federaal ah oo isteedyo la dhisay oo dowlad federaal ah la soo xulay oo waddankii la warseen wax ku gaari karaa alla ilaahay balaan soo kabanno ee waddankii nidaamka aan maanta ku wada noolaan karnaay inaan beyska intaan ka soo dhisno nidaamkan federaalka oo adduunka in badan oo ka mid uu ku dhaqmo aan qaadanno oo marxaladda aan soo marro waxay noqotay midda maanta aynu ku dhisannahay ee dowladda maanta jirta ee federaalka ah oo ah teramkii labaad ee iyadoo dowlad buuxdoo la aqoonsan yahay waxay soo wareejiyey oo soo daadiyey ilaa iyo intii ay kala guurka noqonaysay dowladdii xasan sheekh oo ugu dambeysay sheekh shariif ka bacdi dowladda federaalka waxay ka bilaabatay xilligii teramka xasan sheekh hadda waa marxaladii labaad ee teramkan hadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah markii labaad ee ay dowlad la aqoonsan yahay oo buuxda oo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya la yiraahdo aan maanta ku jirno xaaladda maanta taagan markaa waddanka xaaladda maanta taagan waxaan garanaynaa culaysyo badan iyo dhibaato badan iyo mushkilado badan iyadoo ay jiraan dagaallo amnigu waa waxa ugu muhiimsan ee qofku uu saari karo dareenkiisa ku cabiri karo fogs garayn karo nolosha oo dhan ka bilaabmayso xaalado amni iyadoo ay jiraan firqooyin tadarufa
oo shabaab iyo kuwo lamidii ay dagaal waddanka gudihiisa ka wadaan oo dhibaatadaas ay keentay in amni darrada iyo burburka waddanku uu marxalad adag sii maro arrimaha siyaasadda iyo bulshada oon intaba garanayno maanta hoos u dhaca iyo dhibaatada taagani inta ay la-eg tahay oo aan isleenahay waddanku sidii la rabay ee u soconayo uma socdo waxoogaa waxaad moodaa hakad iyo istaakulo badan inay jiraan oo maanta ayna taagnayn marxaladihii loo baahnaa in horey looga gudbo amnigu waa furaha nolosha al-shabaab waxay ku jiraan iskaashi la-aan maanta cid ka wada shaqaysaa ma jirto waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii aan nahay cunsurka soomaaliga ah ama soomaalida ama ha noqoto heer federaal ama heer state level ha noqotee iyagaa isku filan maanta inay cadowgooda iska celiyaan iska difaacaan waddankooda xoraystaan laakiin dhibaatada taalla waxay tahay waxaa ka maqan isku xidhkii iyo tansiiqii laga wada shaqayn lahaa in loo wada jeesto waxa inoo yaalla waxaan dhaqan ka dhigannay inaan idhaahna waxaan wax ka sugaynaa dowlado kale waxaan sugaynaa inay ciddaas na difaacdo hebel baa wax noo taraya kanaana yeelaya waxaan luminay wixii annagu aan lahayn iyo qofka soomaaliga ah xorriyadda caawa oo kale aan calankeedii saarayno ee 60 sano laga soo wareegay inoomayna keenin amisom iyo dowlado reer galbeeda iyo cid kale toone waxa gacanta soomaalida ku timid bay ahayd iyo isku tashigeeda iyo awoodday samaynaysa marka waxaan luminay oo meesha ka baxay isku kalsoonidii iyo isku tashigii iyo inaan inagu amnigeenna suganno oon annagu isku filannahay taasi waxaad moodaa inay meesha ka baxday iyadaana waxay keenaysa maanta wax badaan oo caqabadaha maanta yaalla qayb ka ah haddaba soomaaliya markaan ka hadalnay marxaladaha ay soo martay dagaal sokeeye oo burbur iyo dhibaato iyo mushkilad keenay muxuu ahaa xalka la doonayay dagaalka soomaaliyase maxaa salkiisu ahaa soomaaliyase see bay uga bixi kartaa marxaladda ay maanta ku jirta iyo dhibaatada jirta maxay ku timaadaa maxayse kaga baxdaa soomaalidu ma jirto colaad qabiil ma jirto dadkan wax ka dhexeeya maanta qof soomaaliya oo deegaan kale intuu ka soo noqdo ama qabiil loo qabsanayo ama hayb loo qabsanaya ma jirto laakiin waxaa jira wax kasta oo soomaalida dhexdeeda maanta ka dhacay waa wax ka yimaada ama ku yimaada maamulka iyo hoggaanku inuu keeno ay sabab u tahay haddii siyaasaddu khaldanaato oo siyaasadda gurac ku yimaado waxaa imanaya in markaa ay dhibaatadu saamaynaysa dadkii oo qofka siyaasigii siduu doono mar walba u isticmaalayo ama danaha siyaasadeeda uu leeyahay uu mar walba rabo inuu ka gaadhsiiyo ama yoolka uu ku tiigsado oo markaa sida uu doono uu u isticmaalayo qabiilkii iyo siyaasaddii waxaan u baahannahay shacabka soomaaliyeed inay xusuustaan taariikhday lahaayeen iyo wixii shalay u yaallay waxaan u baahannahay shacabka soomaliyeed inay xusuustaan inayna qabiil maanta meeluu u geynaya meeluu ku taraya una jirin waxaan hadda marxaladahan inoo dambeeye ku jiray marxalado system kala guura oo fiican dowladihii hadda inoogu dambeeyey from imbagati tii ahayd markii laga soo bilaabo sidii loo kala wareegay isku darkii labada baarlamaan ee jabuuti dowladdii sheekh shariif ay ku timid sidii dowladdii ka dambeysay ee federal governmentiga buuxday xasan sheekh loogu wareejiyey tan maanta tahayna maxamed cabdullaahi farmaajo sidii loogu soo wareejiyey waxay ahayd arrin cad oo qof waliba uu garan karayo keenaysana qof kasta oo siyaasiya oo dan lahaa oo dibadda jira ama gudaha jooga qof waliba maanta inuu ka fekero alleelaha waddankii haddaad damac siyaasadeed leedahayna dowladda jirtana teram 4 sano ay leedahay midda ka dambaysana waa sidaase uu hiigsado qof waliba inuu u hoggaansamo ama uu hamigiisu noqdo hadduu wax sixi kara iyo hadduuna sixi karayninba waxa uu ku fakeraya inay noqoto muddada uu xilka saaxiibkii hayo inuu sugo isagoo markaa fiirinaya khaladaadka dowladdaa ka horreysay waayo qofka ciyaarta gudahooda ku jira iyo qofka bannaanka ka jira waxaa inta badan la socdoo khaladaadka arkaya qofka fiirsanaya markaa ninku markuu muddo isagoo siyaasadda rabo inuu soo galo bannaanka ka fiirsado waxaa u soo baxaysa alleelehe halkaasaa khaladkaasi ka jiraa taasaa khaladkaasisaa ka jiraa amaad adigu sidan iyo sidan wax ku sixi lahayd waxaan ognahay doorashadii hadda ugu dambeysay iyadoo uu qeexayo dastuurku teeramka xukuumaddu inta uu noqonayo oo una ka xadidaynin madaxweynahaasi isma soo sharaxi karaysid haddana doorashadii hadda ugu dambeysay waxaa ku tartamaysay 2 madaxweyne oo kii markaa jagada hayey iyo kii ka horreeyey baa ku tartamayey labadoodii midkoodna ma qaadinay madaxweyne saddexaad oo horey u ahaa siyaasi ra-iisul wasaare soo maray
yaa waxay noqotay inuu u helo fursadda inuu isagu ku guulaysto. waxaad ogeydeen sida loo kala wareegay iyo wanaaggeeda siday ahayd. waxa sababayana waxay ahayd ilaalinta dastuurka oo la ilaalinayey oo ay ahayd waxa lagu dhaqmeeyey sideen u wadnaa iyo see loo qaada. waxaan rabaa inaan in yar tusaale ka bixiyo dowladdii xasan sheekh ee bilowga ahayd, dowladdii federaalka ahayd ee rasmiga ahayd. waxaan ka mid ahaa xubnihii golaha national leaders forumka. golahaasi waxaa jiray waxa maanta baarlamaanka ka socda oo ama la odhan karo extension ama in waktiga dib loo dhigo ama kan iyadoo guddiga doorashada maanta jira ay jirtay ee Xaliime Yarey dowladda baarlamaankuna uu jiray ayaa waxaa jirtay hindise la keenay oo ahaa extension in la helo in lagu daro ku daris package oo dowladda xukuumadda iyo baarlamaanka intuba ay qaataan oo laga fakarayay baa jira. waxaan aad u xuseeyaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo go-aan adag qaatay oo ku yidhi waxa waddankan deganaanshihiisa uu ku xidhan yahay waa doorashada u dhacaysa sida ay tahay. sidaa daraaddeed haddii khalad uu galo doorashada oo aan maanta ka shaqayno inaan extension samaysano ama aan muddo kordhin samayno, waxaad ogaataan waxa aan ka shaqaynayna kulligii raadkiisu inaan dib u guranayno. sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan samayno doorasho rasmiga inay dhacdo oo xilligeeda ay ku dhacdo. doorashadaasi waxay keentay markaa in la yidhaahdo guddiga doorashooyinku ee Xaliime Yarey hogaaminayso wuxuu aasaaskiisu ku dhisnaa guddi ku dhisan doorasho hal qof iyo hal coda. waxaa la isla qaatay inayna suurtagal noqon karaynin. sidaa daraaddeed ay noqoto doorasho dadban la geeyo dowlad goboleedyada, la sameeyey fiid iyo siid labadii guddi doorasho heer federaala iyo guddi doorasho oo heer istayda. sidaana xukuumadda maanta jirta iyo baarlamaankeedu ay ku soo baxeen oo markaa uu fursad u helay madaxweynaha maanta kursiga ku fadhiya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ku guulaystay iyadoo taariikhi ahayd labadii madaxweyne ee ka horreysay la tartamaysay gacmaha inay qabtaan oo sidaa loogu wareejiyo. taas macnaheedu waxaa weeyaan in la ilaaliyo dastuurka iyo dowladnimadu waxay keenaysaa, waxay abuuraysaa oo ay keenaysaa sida ugu fiican ee xasiloonida siyaasadeed ee waddankani ku iman karta inay tahay in cid waliba sida ay tahay ay waxu wareejiso oo ayna jirin wax damaca oo qofku uu lexjeclo si kale u qaato. taasaa keentay markaa maanta inaanu soo gaadhna halkaasoo qaabka aan ku samayno. waxaa yaalla hadda markaa waxaad arkayseen dastuurkani isagaa ina kala hagaya. haddii isaga la waayo waxaa meesha ka baxaya sistamkii dowladnimo ee ka shaqaynaynay si kulligaa loo waayaya. in la ilaaliyo waa khasab. madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka, baarlamaanku waa sharci dejiye, fulintu waa soo diyaarinta waxa waddanku uu ku shaqaynayo. isteydyadu waxay leeyihiin matalaadooda, waxay leeyihiin hogaaminta, waxay leeyihiin maamulista waddanka inta ugu badan inay waxeeyaan. soomaaliya maanta ma joogto xilli qofku uu digteer garayn karo oo odhan karaya waxaan anaa idhi iyo sidan aan idhi iyo tana ani ila quman. waxay maanta soomaaliya halkan ku soo gaadhay wadatashi, isu dabacsanaan, maxaa kula quman, see fikirku yahay, dastuurku muxuu qabaa, sidan in la yidhaahdo. taasaa waxay noqonaysaa maanta waxa dowladnimada aan ku jirraayey sabab u ah ee keeni karaysa inaan horeyna uga gudubno meesha aan joognana aynaan dib uga noqonin. laakiin hadday noqoto inuu qof waliba yidhaahdo tashiga anaa iskale waxaan idhahdaana soconaya, waxaan garanaynaa kala wareega iyo waxa dowladnimada aan ka shaqaynayna meesha way ka baxaysaa. sidaa daraaddeed waxaa maalmahan aada u soo noqonaysay, waan arkaynay maalin dhoweyd guddiga doorashooyinka qaran oo baarlamaanka ka jeedinayay hadal aragtidooda ku saabsan. waxaa muuqanaysay guddiga doorashooyinka heer qaran aragtida ay soo jeedinaysay inay ahayd technically xataa inayna u diyaarsanayn doorashada maanta laga sugaya inay qabato. waa doorashadii la rabay inay soo bilowdo 2018, 19, 2020 ay dhammaystirnaato wixii doorashada technically xataa inayna u jirin. waxay noqotay baarlamaankii ahaa sharci dejintu inuu noqdo isagu inuu wax sameeyo oo qaraaraad intuu qaato sidan uu yeelo qaraarkan uu fuliyo kan uu seelo kan uu saleeyo. taasina macnaheedu ay noqotay ilaa xaday u ekaato qof kastoo xildhibaana inuu yidhahdo kursiga ano aan ku fadhiyo anaa leh, xaggeen geystaa iigu sahlan oo aanu ka soo heli karaa. waxaa ka mid a caqabadaha yimid inay guddiga doorashooyinku soo bandhigeen muddaxileed aan xataa waktigooda uuna gaaraynin oo waktiga
ay soo qortay hadda guddiga doorashooyinka guddoomiyaha guddigu waa waqti iyada xilkeedu uu ka baxayo macnihii xilligeedu ma gaarayo that means waxaa weeye inay hesho extension laga wada shaqaynayo iyada iyo baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo kulli in la qaato taasi maxay cidhib xumo ku keenaysaa soomaaliya cidhib xumo waxay ku keenaysaa inay dib u noqoto raadkeedii dib u qaado wixii hadda wanaagga lagu kala wareegayey sidaa lagu waayo macnaheedu markaa waxaa asala waa inuu qofka qaado mas-uuliyadda maanta saarani berri waxaa ka iman doona inuu garto iyadaa muhiima oo uu garto haddii sida maanta ay waxu jiraan ee sidii shalay lagu kala wareegay aan loo kala wareegin inay dhibaatadu sii soconayso waxaa taalla dowlad goboleedyo dhammaystiran oo xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka horreysay dowlad puntland inta kale xilligaa la sameeyey oo mid waliba uu leeyahay dastuurkiisa iyo dhaqankiisa iyo siduu u dhaqmayo dowlad goboleedyadaasi waa stakeholders waxay ku leeyihiin inay ka taliyaan mustaqbalka waddanka sababtoo ah in badan oo mas-uuliyadda waddanka ka mida iyagay saaran tahay tale kuma liidin waxba laydinka weydiin maayo waxaad sheegtaan waxba kama jiraan dee waddankii noocaas ma aha waddanku oo ku soconayo waxaan rabaa markaa inaan ku booriyo laba xaalo madaxda dowladda federaalka ah waxaan rabaa inaan u sheego inay gartaan xilka saaran ee mas-uuliyadeed madaxweynuhuna uu aqoonsado inuu yahay ilaaliyaha dastuurka iyo shuruucda waddanka u yaala baarlamaankuna ay gartaan inay yihiin sharci dejiyayaal maanta oo waktigoodu dhammaaday inay xeerar ka shaqeeyaan oo intaasoo qodob ay ka hadlaan oo yidhaahdaan kana oo waddankii maanta dib loogu celiyo coqdad iyo dagaal sokeeye iyo waxaan loo baahnayn oo ninba nin ku riixo wax meesha ku jira ma aha aan ilaalino dowladnimada soomaaliya aan ilaalino qarannimadii meesha joogta dastuurku isagaa ina dhaqaya isagaan ku wada joognaa baarlamaanka soomaaliya waxaa shardiga inuu garto shaqada uu leeyahay ee xeerdejinta ma aha shaqada uu leeyahay midda fulinta iyo waxyaalaha hadda ku dhaqmaya waxaan rabaa inaan aada ugu soo celceliyo waddankani deganaanshaha siyaasadeed iyo xasiloonidu waxay ku jirtaa waxa dastuurku qoraya in lagu dhaqmo mar kasta oo mukhaalafada dastuurku ay timaado waxaa imanaya dhibaato iyo culays inteeda leh waxaa jirtay qodobada qaarkood oon rabo inaan aada loo qabiileeyey ama la siyaasadeeyey ama aada looga hadlay oo qodobadan baarlamaanku hadda uu khaladaadka ku sameeyey ka mid ah waayo wuxuu haddii meelaan munaasabkiisa in la mariyo waxaa laga yaabaa inay dhibaato iyo culays kale ay keento waxaa ka mid ah arrinta gobolka banaadir oo kale banaadir waxaan garanaynaa waa caasimadii qaranka shalay dastuurka federaalka waxaa ku taalla aqalka sare inuu leeyahay 54 xildhibaan oo ka kooban 18 gobol ee Soomaaliya waxaan ka mid ahay dadkii ka shaqaynayay sida loo dhisay isteydyada iyo baarlamaanka aqalka sare dhismihiisii qaabka loo qaybiyey waxaan wax badan ka hadlaynay oo culayska ugu badan la saarayay war caasimadda Soomaaliya baarlamaanka iskala shaqadeeda waxaan u baahanahay inuu dhammaystiro oo maqaamka caasimadda muqdisho wax badan bay inaga mudan tahay maanta inta waaweyn ee waddanka wax ku soo baratay iyo inta waaweyn ee ku soo kortay intuba xamar way garanayaan faa'iidada lahayd iyo caasimadeedu waxay ahayd aan qeexna maqaamka caasimadda waxay mudan tahay magaalada muqdisho inay hesho maqaamka ay leedahay ee caasimadnimo waxay mudan tahay inay matalaad ku yeelato aqalka sare iyo meelaha kale si looga baahan yahay oo kale waxay mudan tahay inay yeelato golo deegaan oo wax soo doorta waxay mudan tahay inaan maalin walba loo yeedhin gobernatoore iyo maayar intii la keeno la yidhaahdo wixii xisaabe la yidhaha xataa gobolka banaadir baa qaadanayana xafiiska hebel dib ugu soo celiyo gadaal kasoo geli aan la odhanin iyada wax loogu qabto oo gobolkii lagaga shaqeeyo oo caasimaddu waxay u baahan tahay iyo maqaamkeeda intii la qeexo loo sameeyo waxaan maanta maraynaa caasimaddii oo maanta qof ani iga xiga uuna jiro qof waliba ku waxaysan in la yidhaahdo aleele reer hebel baa xiga oo reer hebel baa diidan wax ka jiraa ma jiraan reer hebel xigaana ma jiro reer hebel diidanna ma jira waxa yaalla waxay tahay waxa ay u qalantay ee maqaamka baarlamaanku shaqada ahayd inuu shalay qabto inuu maanta carcaraafiyo sax ma ahayne waxa maanta ay u baahan tahay muqdisho iyo maqaamka caasimadda ay u baahan tahay ee aan ahayn maalin walba maayar in la keeno iyo hebel in la bedeliyo in la keeno oo council ayna lahayn oo maanta haddii la yidhaha 50 senatar baa leedihiin xataa
loo soo qorayo dikreeto loogu soo qaybinayo oo qabiil loo qaybin leeyahay saas ee la odhanay xataa waryaana dhaqi kara iyo muxuu noqon karaa iyaga dooranay midna aan la odhanayn inay sax u ahayn dadku ay u arkaan inayna jirin cid diidaysa iyo cid waxaynaysaa intii qof moos la inoo dhigo inaan annaga dhexdeena dhibaato laga dhigin waa shay muhiim reer muqdisho markii la dhaha anigaa kow ah ma ihi laba kow baan ahay cidda sheeganaysa anigaa kow ka ah waxaan u baahannahay inaan hello matalaadda ay leedahay iyo say tahay anagoo ixtiraamayna wejiga loo rabo in wax loo qabto inay midaas tahay dadka yaan lagu lugoynin oo dan la leeyahay yaan dhibaato kale loogu geysanin oo shacabkii la isugu diran la odhanin reer hebel baale iyo reer hebel baa loo diidaya iyo midaasay sidaa ku tahay waxaan ku soo uruurinayaa arrinta federaal ku saabsan madaxda qaranka madaxweynuhu uu ugu horeeya ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanku ha ilaaliyeen shuruucda waddanka uu ku dhisan yahay ha ilaaliyeen waxa maanta lagu wada joogo waddankeenna innagaa dhisan kara dowlado derisa iyo kuwa dibadda jira iyo kuwa caraba iyo kuwa jarmala midkoodna waxba inooma qaban kareen waxa innaga inoo yaalla aynu qabsano oo aan ka baxno riyada aan ku jirro ee aan meelaha kale isku tuutuumayno ee wax riixriixayno ee wax kala jiidanayno intaan ka baxno waddankeenna iyo xaaladiisa aan dib ugu noqono nasiibkiisu leeyahay qofku doorashadiisa ha u soo istaago cidna kama hami badnayn xasan sheekh maxamuud waxaa u diyaarsaneed xafladda inuu ku guulaysanayo ahayd carafkiisaa qaaday saaxiibkiisii ku guulaystay intuu gacanta qabto yidhi allaha kuu barakeeyo waxaan rabaa madaxweynaha inaa idhahda madaxweynow u ducee allaha kuu barakeeyo dhe haddaad guulaysatana adiga allaha kuu barakeeyo arrimaha bulshada soomaaliyeed waxay maanta soo dhowraysaa dhibaatada haysata iyo culayska haysta waxay wax ka sugayeen waa inta mas-uuliyiinta ama heer federaal ha noqoto ama heer state ha noqoto maanta deegaanadan hadda inoogu soo dhow fatahaadda webiga roobab da-aya culaysyo saaran amni darro haysata intaasoo mushkiladood baa dadkii soomaaliyeed ku dhacaysa mushkiladda intaa leeyahay dadka soomaaliyeed ku dhacaysay waxay ilaahay hortiisana loogala xisaabtay waa inteenna mas-uuliyaddu ay saaran tahay oo nin walba mustawaha uu ka jooga mas-uuliyadda uu ka qaadayo aan dib ugu noqonno inaan bal ka shaqayno isu keenista dadkeenna iyo bulshada ku shaqayntooda iyo arrimahan bulshada iyo maanta markaad waddamada kala marto shalayna aad garanaysa xilligii dowladda soomaaliyeed ay jirtay horumarka aan ku jiriya saan dad badan uga horreynay maanta meesha aan taaliya magaalooyinkanaga qaabxumadooda wax badana baa walaac iyo xumaan ay ku gelaysaa aan ka gudubno marka waxaan uga gudbi karraa waxay tahay waxaan dadkeenna wax ugu tari karraa inaan ka shaqayno deganaansho iyo istiqraar inaan u shaqayno bulshada inaan caafimaadka iyo waxbarashada iyo amniga iyo dhismaha bulshada iyo inaan kaabayaasha dib u samayno iyo shaqo abuur in dadkii loo helo iyo wiilasheenna maalin walba iyo gabdhaheenna badda ku daadana inaan nolol u abuurno oo bal aan isku tashanno sidan si dhaanta waxaan rabnaa inaan berri ka tagan ku riyoonayo xulumkaygu yahay waxay tahay jubbaland oo nabada oo dadku wada degan yahay oo horumarsan oo shabaab deegaanada laga xoreeyey oo horumar gaadhay inaan berri ka taga haddii ilaahay dha oo maxaan sababayna sababta waad garanaysaan meesha aan ka soo qaadnay iyo say ahayd aan ka shaqayno maanta waxaad arkaysaan dowladdii waktigaad ogeedeen la doortay ilaa hadda inaan maalin walba qof u taagannahay oon dib ugu codarayno muddada baarlamaanka oo kordhiya hebel baa naga maqan aan dib heshiisiin raadino maanta aan kuwa xamar jooga iyo kuwa nairobi jooga iyo qof kasta oo wax sheeganaya waxaa nala fadhiya shalay kuwa isbedel doonka ahaa xildhibaan cabdirashiid xidig iyo saaxiibadii waxaan qof walba diyaar u nahay inaan qof walba la hadalno oon u yeedhno oo walaalow nidhaahno oon isqancinno oon garanno waxa noo yaalla waxa uu yahay ma doonayno colaad dadkayga dhexdiisa iyo bulshada dhexdeeda intay timaado inay dhibaato intaa lee gaadhsan waxaan rabnaa markaa in la garto waxa aan raadinayno ee nabadda ah waxaan raadinayno ee dib heshisiinta ah waxaan raadinayna dadka inaan isku wadno intay la eg tahay inaan ogaano taasaa muhiim maanta dadkeennu waad arkaysaan fatahaadaha duufaanada dhacaya roobabka da-aya culaysyada saaran abaaraha ka dababaxaya intaasoo dhibaato imanaysa kii shabaab oo meesha kusii jira intaasoo dhibaato imanaysa haddaynaan inagu isku duubnaanin oo inaan gacmaha isqabsanin oo qofkeenna inaga maqan aynaan tebin oo maanta aana garanin anigu qofka shalay aan siyaasadda isku qabanay maanta ka maqan iyo wuxuu tabanayo intaan u yeelo aan walaalo kaalay
maxaad tabanaysaa wixii aad tabanaysa aan ka xaale kaale oon intaa aan u seeta dheeraynaynin qofna qof kama awood badna haddii la yidhaha waa laisla gurinayaana waa isla baaba'aysaa taasaan rabnaa marka inaan isugu wada nimaadno aan isugu yeedhno insha allahu sanadkan sanadkiisana sidan si aada uga fiican oo ka bedelan oo riyadanada aan ku xaqiijino inaan gaadhno haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ilaahay uga baryaa dadka soomaaliyeed waxa dhexdooda yaalla ee marba cid kale isugu soo xawilaysa inuu ilaahay ka bixiyo oo beerkooda burcad isu mariyo waxaan ilaahay ka baryayaa inta mas-uuliyadda haystaay inay u hoggaansamaan oo ku hanuunaan waxa horyaaliya mas-uuliyadda iyo xeerka qabanaya waxa uu yahay waxaan ku celinayaa baarlamaanka federaalka madaxda qaranka kuwa dowlad goboleedyada aan isu nimaadno aan tashanno qofna qof kale kama awood badno qofna qof kale ma riixi karo waxaan ku gaari karaa kugusan waxaan ku gaari karaa tala midaysanna aan isugu nimaadno waxaan ku gaari karaa inaan dhahno waxaan ansaxaya waxana inala yaa khaldan waxaan ku gaari karaa buugga yaraynu ku heshinay dastuurka ah ee buluugga ah waxa uu inoo qoray inaan isaga intaan ku hoggaansanno isagu u noqdo waxayna kala hagaya aada iyo aad baad u mahadsantihiin guul baan idiin rajaynayaa sanadkiisana waxaan rajaynayaa soomaaliya marxaladdan marxalad ka fiican inay gaari doonto waxaan aada iyo aad ilaahay uga baryayaa in boggeenana burcad isu mariyo khilaafka dhexdeena aan xal ka gaadhno mas-uuliyiintana waxaan leeyahay baarlamaanow shuruucda hala ilaaliyo madaxweyneow shuruucda ilaali dowlad goboleedyo ilaaliyo hoggaansama qof walaba shaqadaad leedahay garo ha lagu dadaalo inaan u hoggaansano sharciga inoo yaalla haddii la barbar maroon isaga isku diidno waxaad ogaataan inay wax sida kasii xuno ay noqonayso cid wax inooga taraasayn ayna jirin aan sidaa yeelo wixii laaliyo wixii la isla afgaran waayana intii laysu yimaado aan fadhi kaga tashanno oo ha la yidhaahdo sidan ansaxa iyo sidan ansaxa diyaar baanu nahay weliba jubbaland haddaan nahay waxaan diyaaru nahay in laysu yimaado la wada tashado la fadhiisto aan u hoggaansano shuruucda aan ka wada tashano dastuurku waxa uuna farayo wixii laakiin ka baxsan waxa laysu ogyahay dhibaataa ka imanaysa waad mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu